badan ayay dhibaatootay wax badan ayay garab u baahnaatay wax badan ayay meelaha ku ooysay wax badan ayay ceel isbedel بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقة سو دوادا ميل walba aad joogteen asxaabay channelku waa qurux dumar official ku soo dhawow hadii ay ku cusub tahay oo ay tahay markii kuugu horeysay fadlan waxaan ka codsanayaa in aad subscribe-ka ii saarto like-na sidoo kale comment-gana waa fikradihiina asxaabta qaaliga aad iyo idin jecelahay dhamaantiinba asxaabtii hore iyo asxaabta dambe ee ugu soo biirtay insha Allah soo dhawaada asxaabta cusub ee imaan doontaan waxaan leeyahay idinkana soo dhawaada gacmo furan niyad saafiya iyo qalbi idin jecel asxaabta qaaliga mininku waa mininkiini ha ismartiyeenina asxaabay insha Allah sidaan hore idin kaga balan qaadaybo waxaan rabaa hadii Ilaahay yiraahdo in aan idin dhameystiro sheekadan oo maxaa la dhahay la magac baxday sheekada ayaan daran sheekadaas oo aan maxaa la dhahay aan bariyahan idin soo tabinayay insha Allah qaybihii ugu dambeeyay ay joogtaa hadii Ilaahay yiraahdo marka waxaan rajeynayaa hadii Ilaahay yiraahdo inaad dhageysan doontaan bilow ilaa dhamaad hadii Ilaahay yiraahdo asxaabta qaaliga sheekaduna waxay u bilaaban doontaa hadii Ilaahay yiraahdo sida tan ee soo socoto Canab waxay dib ugu soo noqotay saaxiibadeed iyada oo faramaran hal mar bayna isla yiraahdeen Canab maxaa kugu dhacay aaway koladii aad noo doontay Canab sidii qof waalan oo kala bay intay goobtii ku dhax kacday ayay aad u qaylisay oo ay dhahday iga baxa gurigeyga ma dambana ha ii imaanina aad ayay u qaylisay asxaabtii maxaa la way kala carreen kooxdii oo maxaa la dhahay qayladii Canab ayay aad uga naxeen wayna kala carreen oo cagaha ayay wax ka dayeen waxayna saacad kadib gurigii dib ugu soo noqotay Sahro oo ilowday dhagaheedii waxaana iyada iyo Canab dhexmartay sheekadan Canabay ilaan jiniyo baad leedahay oo marmarka qaarkood baa lagu kacay tiri oo macnaha jini ayaa leedahay marmar ayaa lagu soo kacaa sidaad u fiican tahay maxaad sidaa noogu gashay soo qof xushmad iyo martida garanayso soo ma ihid ayay tiri wixii ku jawaabtay Canab walaal Sahra iga raali ahaada hadii ciilkii aan qabay idin kula dhacay hase yeeshee waxaan go'aan ku gaaray in laga bilaabo caawa noloshayda aan wax ka bedelo aan si gogol xaarto mustaqbal fiican mid kale waxa indhahaas oo godgodka ii yeelay iyo duruufta madoobaadka ii yeelay oo iga muuqato macnaha waa dhibaato oo aniga aan dhexda iyo faraha aan kula jiro igu filan intii igu soo martay ama intii igu dhacday ayaa igu filan adigana Sahray waxaan ka codsanayaa ama aan kugu waaninayaa in aad joojisid wixii aan isku ogeyn wax dan ah nooma ahee marka waxaan ku sheegaa walaashay qaaliya go'aanka ani aan gaaray ina adina ila gaarsid oo aad iska daysid waxyaabahan anaga noo keenay ama mustaqbalkeena xumaynayo marka sidaas daraadeed waxaan hubaa in aan dib ugu noqon doonin insha Allah adigana diyaar ma u tahay sidaas oo kale in aadan dib ugu noqonin okay way isku waafaqeen labadooda halkaas ay iyadana ku waanisay oo sida iyada ay jecleed ayay u sheegtay toddobaadkii lagu balamay arooskii asli iyo xarbi waa uu dhamaaday waxaana xafladii lagu dhigay guriga reer oo jaamac Cambaro intaan arooskii bilaaban waxay u digtay hooyooyinkii xaafadda oo jaamac wuxuu soo kaxaystay saaxiibadiisii oo dhan waa la isugu yimid meeshii ayaa la isugu maado gurigii ayaa la isugu yimid dhalinyaradii xarbi iyo asli ay isliqaaneen way wada yimaadeen guri gooni ah baa la fadhiisiyay duqowdii guri kale ayaa ayagana ay galeen oo nin walba asaagiisa nin walba ninkuu asaag leeyahay ayaa gooni ay u kala fadhiisanayeen okay guriga reer oo jaamac ayaa fiidnimadii meherkii ka dhacay markaas kadibna asli waxaa loo soo galbiyay gurigii ay ku aqal galayeen muddo yar kadib markii ay gacan qaadkii iyo hambalyadii dhamaatay waxaa iskaga tagay oo isku soo haray asli iyo xarbi wuxuu yiri xarbi asliyay caawa ayaa noloshii rasmiga ahayd inoo bilaabatay waxaa ina fuulay xil weyn
shakina kuma jiro in jaceelkeenu uu noqon doono mid mira dhala ayuu yiri. waxay tiri Asli, Xarbiyow, Ilaahay waxaan ka rajeynayaa in aynaan noqon kuwo tacab qasaaro oo intay guriga dhisan macnaha markiiba naga dunsho ama gurigeena uu dumo ayay ku tiri. okay, Asli iyo Xarbi sidii ay muujiyeenba waxay noqdeen laba qof oo miyir leh, daacadna isku ah. Asli waxay Xarbi u dhashay wiil iyo gabar, jaceelkay isku qabeen na wuxuu aad ugu sii kordhay, aad ayuu macnaha labadooda ugu kordhay. markii ay ubadka isku dhaleen ayuu aad u sii kordhay, aad isugu sii fiicnaadeen. Asli waxay noqotay hanuuniyo weyn ayay noqotay, oo waxay noqotay qof lagu daydo, waxay noqotay qof waaye arag ah, waxay noqotay qof waayaha iyo dhibkiisa iyo dhibkiisa iyo dheeftiisa kala garan karo, siiba dhibta aad u fahmi karo ayay ahayd. sababtoo ah wax badan ayay dhibaatootay, wax badan ayay garab u baahnaatay, wax badan ayay meelaha ku ooysay, wax badan ayay ciil isbeday. marka oohinti ka dhamaatay kadib Ilaahay wuxuu ugu bedelay farxad, samirkeeda ayaa farxad u dhalay. iyo maxaa la dhahay walaalkeed oo aad u garab taagnaa, oo aad maxaa la dhahay garabkeeda istaagnaa, oo maxaa la duruufta mar walba asaga ka walaalaysan jirtay oo calaashan asaga ayaa garab u ahaa mar walba. Ilaah ka sako oo marka hore Ilaah ayaa qofka garab siiyo, laakiin walaalkeeda garabkeeda ayuu taagnaa. waxa kale oo garabkeeda taagnaa Faadumo, Faadumo ayaa iyada mid kale aad u garab qabatay. marka okay, marka waxay noqotay saa idin sheegay hanuuniye ayay noqotay. okay, hanuuniyo weyn ayay noqotay oo waxa ugu jirtay gabadha da'da yar oo hawtal hamag ah ama mooga ah, qatarta kaga imaan kartay gaf ay mar qura samaysay, iyo sida ay sahalka iyo mustaqbalkeeda macnaha mustaqbalkeeda oo loo balayn karo hadii aanay iska aadan hadii aydan macnaha iyadu iska adkaan. Asli waxay noqotay qof la sharfo, waayo iyada is-sharaftay. hadii adiga aadan sharaf isu yeelin adigana cid macnaha ku sharfayso ma jirto, sababtoo hadda adiga sharaf isu yeesho ayaa sharaf leedahay. mujtamacii Asli awalba dagaalka kulul ku haayay way cafiyeen markii ay noqotay qof dhoorsoon oo iska adag lehna bartilmaameed ay hiigsanayso. marka Asli sidaan wada aragno sheekadan waxaan ka dareemeynaa in ay noqotay Asli qof sharaf leh oo heybad leh, oo hal mar kaliya gafkii ay gaftay kadibna ay ka toobad keentay, Ilaahay u noqotay, ay noqotay qof maxaa la dhahaye dhaxda xirtay ay noqotay. sababtoo ah Asli waxay ahayd qof laga soo buriyay gurigooda iyo cidooda dayro ka ah ayay ahayd. hase yeeshee laakiin waxay dib mar walba uga shalayn jirtay dhibaatadii ay gafkii ay geysatay, oo ay dib mar walba uga shalayn jirtay ama gafkii ku dhacay. sidaas daraadeed Asli waxay noqotay gabar aad mujtamaca looga jecel yahay, oo aad macnaha loo sharfo, oo aad ixtiraam ugu leh. okay, horaa loo yiri qofka asaga naftiisaba daryeelaad kala ku daro. qofka haduu asaga is-sharfo oo asaga is-wanaajiyo wax kasto way u wanaagsanaanayaan oo dadkuna way wada jeclaanayaan. laakiin qofka haduu xun yahay cid rabta ma lahan. okay, asxaabta qaaliga ah sheekadan kulay intii la socotay ama intii hore u dhageysatay bilow ilaa dhamaadkeeda insha Allah waa rajeenayaa in aad ka wada faa'iidi doontiin hadii Ilaahay yiraahdo. sheekadan waa qiso dhab ee dhacday oo qiso dhab waaye insha Allah. marka asxaabta qaaliga ah sheekadani ayaan daran halkan ayay noogu dhamaatay, waa dhamaad way noo dhamaatay gabagabadii sheekadan maxaa la dhahaye way isguursadeen, way aqal gashay Asli, wiil iyo gabar ay dhashay. marka sidaas daraadeed sheekadii waxay ku dhamaatay Asli in ciideedii la heshiisay, ay noqotay gabar la jecel yahay, ay noqotay marka hore bulshada dhan ayaa necbaneed oo indhaha ayay ku wada hayeen, oo walacayn jiray, oo iskuulka hadday dhiganaysa dhibaatay kala kulmi jirtay, oo markay dhalaysay dhibaatay kala kulantay, oo meel walba ay cagta saarto dhibaato ayay kala kulantay. waxa kaliya oo caawiyay oo garab taagnaa mar walba waxay ahaayeen walaalkeed Cali Amuura iyo eedadeed Faadumo.
marka saas daraadeed hadda waxay noqotay qof maxaa la dhahay isku tashtay oo gafkii ay mar kaliya ku dhacday oo sida kadiska ay ugu dhacday oo gafkii foosha xumaa in ay asli ka toobad keentay ee noqotay gabar aad loo jecel yahay ee bulshada wada jecel yihiin. Okay, sheekadan waxa ku jirta qiso aad u wanaagsan oo qofka hadii oo maxaa la marsan birxoodo inuu dib maxaa la dhahay wasaga isku hagaajin karo oo sabarka wax ka fiican ma lahan. marka asxaabta qaaliga ah insha Allah waxa rajeenayaa sheekadan hadii Ilaahay yiraahdo in aad bilow iyo dhamaad la socotid hadii Ilaahay idmo inkastoo ay noo dhamaatay hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajeenayaa hadii Ilaahay yiraahdo sheekooyin kale oo taxana ah in aan idin soo gudbi doono hadii Ilaahay qadaro waa wax walba waa qadarta Ilaahay insha Allah. asxaabta qaaliga ah waxaan idin ka codsanayaa horena fiidiyoga bilowgiis aan idin kaga soo codsaday in aad subscribe-ka ii saartaan oo haddaad igu cusub tahay fadlan subscribe-ka ii saar. haddaad igu cusbeen oo hore ila joogtayna waxaan ka codsanayaa in oo macnaha oo aad subscribe ii ahayn inaad subscribe-ka ii saarto gambaleelkana aad furto si waxyaabaha aan soo dhigo ay kugu soo dhacaan. aad iyo u mahadsantiin sida wanaagsan aad ii daawataan waa idin kaga mahadcelinayaa insha Allah. jazaakallah ayaa idin leeyahay asxaabta qaaliga ah waana ku mahadsantihiin asxaabay insha Allah. waan idinka sii tagaaya asxaabta qaaliga ah insha Allah. fiidiyogan iyo fiidiyoga xiga hadii Ilaahay yiraahdo waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.